السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. geedka waxtarka badan ee caafimaad leh ee la yidhaahdo xarmalka inkastuu qarniyo ka hor ahaan jiray geed waxtarkiisa laga faa'iidaysto haddana wuxuu caan noqday oo adduunka oo dhan wada gaadhay sanadkii 1996kii waana geedka inta badan ku jira ee lagu daro dawooyinka laga iibsado farmasiyada waana geedka dawada ka ah cilladaha ku yimaada dheefshiidka meeshana ka saara shubanka sidoo kalena waa geedka muhiimka u ah caafimaad qabka wadnaha iyo halbowlayaasha dhiigga ee wadnaha waraabiya waana geedka lagu daweeyo cilladaha ku dhaca sambabka iyo sidoo kale hargabka iyo qufaca tagi waaya waana geedka meesha ka saara madax xanuunka aan joogsiga lahayn isla markaana waa geedka awoodda badan siiya aragtida indhaha iyo caafimaad qabkoodaba waana geedka caanka ku ah inuu ka hortago xanuunada ku dhaca qanjaha iyo afka waana geedka xakameeya xanuunada ku dhici kara ciridka iyo ilkaha haddaba geedkani wuxuu ku fiican yahay in cuntooyinka lagu darsado laakiin qofka doonaya inuu sidiisa u isticmaalo waxa lagula taliyaa inuu macluumaad dheeraada ka helo meesha uu ka iibsanayo isla dhinaca kalena midhaha geedka shamar waxay isku koox yihiin dhirta kale ee yansuun iyo shibti asal ahaanna waxaa laga isticmaali jiray wadamada hindiya iyo talyaaniga waxaanay soo hoosgalayaan dhirta rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inagula dardaarmay isticmaalkooda ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi calaykum bisana wasanuut haddaba aynu soo qaadana 7 faa'iido oo ay jirhkeenna u leeyihiin isticmaalka midhaha shamar waxaanay kala yihiin kow waxay u fiican yihiin caafimaad qabka lafaha waxaana ku jira maadooyin badan oo lafaha ka dhiga kuwa caafimaad qaba kana ilaaliya dhibaatooyinka soo wajaha lafaha 2 waxay ilaa xad hoos u dhigaan kacsanaanta dhiigkarka waxaana ka buuxa midhahan oo ku jira maadooyinka calcium potassium iyo magnesium 3 waxay wanaajiyaan caafimaad qabka wadnaha waxaana ku jira midhahan faytamiino badan oo u fiican caafimaad qabka wadnaha 4 waxa ku jira midhaha geedkan maadooyin badan oo jirka ka dhiga mid iska difaaca kansarka waxaanay beerka ka dhigaan mid iska saaraya sunta 5 waxay xoojiyaan difaaca jirka waxaanay ka shaqaysiiyaan dhammaan marinada dhiigga ee jirka oo dhan 6 waxay jirka ka caawiyaan inuu iska difaaca noocyada kala duwan ee inflammationka waxaanay jirka ka caawiyaan inuu helo hurdo wanaagsan 7 waxay fadhiisiyaan miisaanka jirka waxaanay isku dheeli tiraan dhammaanba hormoonada jirka waxaanad u isticmaali kartaa midhahan inaad ku darsato cabitaanada aad cabayso sida shaaha ama sharaabka ama faahfaahinta weydii meesha aad ka iibsanayso